guddigii madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo hore ugu saaray in ay xal iyo talooyin ay u helaan sidii wax looga qaban lahaa sicir bararka iyo qiimo dhaca ku yimi shilinka Soomaaliland ayaa maanta qodob ka soo saaray wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland Maxamed Daahir Axmed oo isagu idaacadda radio Hargeysa qodobadaasi ka aqriyay ayaa qodobada uu soo saaray waxa ay u dhignaayeen sidan qodobka koobaad in dawladda dhexe yeelato hal xisaab oo lagu shubo dakhliga dawladda amba shilin ha noqdo amba dollar ha noqdo amba pound ha noqdo sida uu dhigayo nidaamka maamul wanaaga iyo isla xisaabtanka laba in cashuurta jaadka iyo ashyaada kale ee dhibta u leh caafimaadka iyo dhaqaalaha la kordhiyo qodobka saddexaad oo laba qaybood u sii kala baxaya in la joojiyo in macaamiishu isu dirto lacag ka yar $100 person to person oo marka laga hadlayo adeega dahab iyo saad lagana dhigo xadiga ugu yar ee qof kale u diri karo $100 taas macnaheedu yahay in la xanibay isu dirista u dhaxaysa eber ilaa 99 in la joojiyo in macaamiisha wax ku iibsan karaan lacag ka yar $100 waa merchant payment-iga wax ku iibsiga lagana dhigo xadiga ugu yar ee qof uu maahiirada wax kaga iibsan karo $100 wixii ka yar $100 wixii taas oo macnaheedu yahay in la xanibay ku iibsiga u dhaxaysa eber ilaa 99 qodobadaasi waxay saameynayaan short codeska saadka ee 880 ee dirista lacagta macaamiisha dhexdooda iyo 883 ee wax ku iibsi meherad waxa sidoo kale saameynayaan 8 optionska qaybta labaad iyo qaybta saddexaad waxa sidoo kale qodobadani ay saameynayaan short codeska dahab ee 110 ee dirista lacagta macaamiisha dhexdooda iyo 113 ee wax ku iibsiga meheradaha sidoo kale 111 amba 31 optionska labaad iyo saddexaad waa dhinaca dahabka go'aankani ma saameyn doono dhammaan adeegyada kale ee saadka iyo dahabka sida ku shubashada mobile recharge inuu qof xisaabtiisa banka lacag u wareejisto transfer to bank amba oo goob adeeg lacagtiisa amba dahab ugu jirta kala baxo marka xadiga laga hadlayaa waa $100 wixii ka yar waa wixii ka bilaabmay 0 ilaa 99 laakiin saad waa lagu isticmaalayaa dahab wixii $100 ka badan marka maxay ahayd la adeegyada saad iyo dahab waxay ku fulinayaan go'aankan muddo 45 cisho gudahooda oo ka bilaabanta 28 bisha koobaad 2018 kuna eeg 13 bisha saddexaad 2018 qodobka afraad in shirkadda Telesom shirkadda Dahabshiil iyo shirkadda Omar ay joojiyaan ka ganacsiga isku beddelka lacagaha qodobka shanaad si kor loogu qaado isticmaalka shilinka Soomaaliland waa in shirkadda Telesom iyo Dahabshiil adeegyadooda saad iyo dahab ay ka dhigaan ku shubashada iyo ku kaydsiga shilinka Soomaaliland mid aan xad lahayn waqti xaadirkan xad buu leeyahay laakiin waxa weeye go'aankan 45 cisho gudahood ku fulaya waxa laga rabaa shirkadaha in shilinka Soomaaliland iyo dahabka iyo saadkaba lagu isticmaalayo xad la'aan xad aan xadidnayn halku imika ka xadidaya shilinka Soomaaliland oo marka suuqyada la eego sarifka qiimo dhaci ugu weyn uu la soo dersay ayaa markii hore uu ka haan jiray inta u dhaxaysa 6500 ilaa 7500 oo shilinka Soomaaliland halka dollar ayaa bariyahan dambe waxa uu gaaray halkii dollar in 10000 iyo ka badan lagu sarifo taasi oo aad iyo aad xagga maciishada iyo dayarta aad u saameysay labada sharikadood ee Dahabshiil iyo Telesom ee go'aamadan la soo saaray lagu xusay ayaa labadaba markii aan la xidhiidhay madaxdooda Cabdiraxmaan Cali Cabdi oo u hadlay shirkadda Dahabshiil Group iyo Cabdikariim Maxamed oo gudoomiyaha shirkadda Telesom labaduba waxa ay sheegeen oo i cadeeyeen in ay go'aamadan ay soo saartay xukuumaddu ay u hoggaansamayaan oo sidooda ay u fulinayaan Ahmed Saciid Cige BBC Hargeysa.